يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد waxaan marka hore kula dardaarmayaa nafteeda iyo naftiinaba ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa in aynu ilaahay subxaanahu watacaala ka baqno, weliba aynu kaga baqno meel kasta oo aynu joogno. Intaa kadib waxaan rabaa maanta in aan idinla wadaago insha allahu tacaala calaamooyinka lagu garto qofka in la sixray. Calaamooyinkaas baa rabaa maanta in aan idinla wadaago, waana dhowr calaamadood. Calaamada koowaad waxaa weeye haddii aad dareento oodin aan dhammaad lahayn sida qoorta, garabka salkiisa hoose ama aaska korkiisa ama bowdooyinka, inaad ka dareentid oodin. haddii aad ka dareento waxay ka mid tahay calaamooyinka lagu garto sixirka. Calaamada labaad waxaa weeye haddii aad dareento boga in lagaga dhagayo sida gaaska oo kale, waxay ka mid tahay calaamadaha lagu garto sixirka. Calaamada saddexaad waxaa weeye cabsi inaad dareento oo geeri ka baqdid, sida markaa guriga ka baxaysid oo aad isdhahdid ama dhimataa. Calaamada afaraad waxaa weeye habeenkii inaad ku riyooto masas ama qabuuro, ama adigoo cunto riyo lagugu siinayo, ama adigoo timo afkaaga ka soo saaraya. Calaamada shanaad waxaa weeye madmadoobaad inaad ku aragtid wejigaaga. Calaamada lixaad waxaa weeye inaad ka dareento kilida midig ama bidix ama xudunta hoosteeda inuu waran kaaga taagan yahay oo kale. Calaamada toddobaad waxaa weeye ee lagu garto sixirka waxaa weeye inaad kaadida ceshan waysid. 8 waxaa weeye jaax inuu ku xanuuno, jaaxa midig ama jaaxa bidix inuu ku xanuuno. Calaamada 9aad waxaa weeye caajis inaad dareento oo xagga cibaadada iyo diinta ah. Caajis inaad dareento oo ah xagga cibaadada iyo diinta. Calaamada 10aad waxaa weeye qaylada inaad dhibsatid. Qofka haddii uu sixran yahay wuxuu dhibsanayaa qaylada. Calaamada 11aad waxaa weeye lugaha inaad ka dareentid in musbaar kaaga taagan yahay oo kale, ama culays inaad ka dareentid. Calaamada 12aad waxaa weeye indhaha oo daciif noqda, indhahaaga ayaa daciif noqonaya. Calaamada 13aad waxaa weeye riyooyinka soo noqnoqda. Calaamada 14aad waxaa weeye farxad la-aan, inuu qofka farxad la-aan dareemo, wax farxad ah uu waayo, oo farxad la-aan inuu ku noolaado. Calaamada 15aad waxaa weeye inaad gogasha dhibsatid. Calaamada 16aad waxaa weeye welwel, inuu qofka welwel dareemo. Calaamada 17aad waxaa weeye lafaha oo ku xanuuna. Calaamada 18aad waxaa weeye cuntada inaad ka go'did. Calaamada 19aad waxaa weeye qaraabada
inaad goysid oo aad xiriirin waysid. wax qaraabo la yiraahdo inaad xiriirin waysid. qaraabada inaad ka goydid oo aad xiriirin waysid waxay ka mid tahay inaad yacni sixran tahay. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. videogan qofkii daawada subscribe ha saaro, asxaabtiisana ha ugu sheer gareeyo. assalaamu calaykum.